Julibi Ralana waxay ahayd gabadh Filibiiniyada dalkaasi Kuwait bay ka shaqeynaysay reer bay u shaqeynaysay guriga uga adeegaysay gabadhan haddaba meydkeedii oo si xun inta loo dilay waliba la gubay banaanka magaalada Kuwait meel saxara laga soo helay 2013 bisha 11aad gabadhan reer bay u shaqeynaysay reerka waxa uu joogay wiil yar oo dhalinyaro ah oo da'diisu ilaa iyo adu dhalinyarada muraahiqiinta 19 18 meelahaas wiilkaas magaciisa waxa la yiraahdaa Jasim gabadhan marka Ralana la leeyahay waxba ka dhaxay baa yani sheeka iyo jacayl iyo xiriir iyo inuu ku xadgudbay wallahi ma garanaye kolay gabadhii wiilkiisa sheeka iyo arin uga dhaxaysay gabadhii uurba ku soo baxay ninkii bay u sheegtay isagina markaas uu deewaalan gaaray oo yiri khalaas imika abahay hoodii ka iga siinayaan eeboobiya waan fadeexadoobiya meel baa la igu takooraya waxa la leeyahay gabadhii khadaamadda Filibiin ka timid baad uureysay ilmahan iska soo xaq weydiido waxay tiri laga ma yaabana inaan ilmahayga soo xaqo inuu ku qanciyo isku dayo uu ku soo kor warwareegay iyadina weydiiday maalmaha kamid uu kaxeeyay magaalada banaankeedu geeyay bartaas magaalada duleedkeeda intuu ku dilay buu waliba gaariga kormariyay meydkeedina baasiin buu ku shubay meydkii uu gubay halkaas uu iskaga soo tagay gurigoodii buu yimid muddo 3 bariya gabadhii la waayay markay tagaysayna may oran waan tagayaa yani waa la waayay gabadhii sidii u joogtay un baa la waayay qolkeedii yareed deganeedna alaabteedii wax walba way taala reeraha carabta marka ay khaliijka carabta degan khaasatan gabadh u shaqeynaysay in la waayo oo sidii u joogtay un hal mar la waayo waa wax iska caadi ah baa lagu leeyahay sababtoo ah ilaa waa dad dhib badan gabdhaha shaqaalaha way ciqaabaan gabdhuhu way ka baxsadaan marka gabadha la waayo inay baxsatay un baa loo malinaya cid ku sii mashquulaysa male 3 bari kadib dad meel jida marayo meeshii meydka uu ninkan ku soo gubay baa waxay arkeen meydkan meesha yaalay guban isla markiiba laamaha amniga la xiriireen gabadhii markii laamaha amniga la xiriiray cidda ay tahay baa gadaal laga soo ogaaday baaritaan dheer marka la sameeyay sidoo kale gabadha dadkii ay ka dhalatay reerkoodii Filibiin joogay oo ay si maalin dhaafa u wici jirtay maalin hadayna wicin yani maalinka ku xigtay ay wici jirtay baa iyaguna soo wactamay shirkadii gabadha keentay dadkii reerka u geey kuwaas la soo xiriirayeen lahayn waxaan u baahanahay gabadhayadii iyo meeshii ku dambeysay baaritaankii sidii u socday waxa la soo ogaaday gabadhani inay tahay gabadhii reerkan u shaqeynaysay reerkii baa la baaray reerkii markii su'aalo fara badan la weydiiyay adigu wuxuu yiri gabadhu inay baxsatay baan u malinayo gabadhu iska baxsadaan oo saas darteed baan markaan waayay cidna ula soo xiriiri waan cidna u soo ogeysiin waayay gurigii reerkii baa la baaray baaburadoodii baa hal loo baaray ninkii dhalinyarada ahaa Jasim baaburkiisii marka la baarayo baa waxa lagu arkay baaburkiisa dhiig waliba taayirada baaburka markii gaarigii dhiigii lagu arkay la baaray lagu dhiigani muxuu yahay wuxuu yiri mar baan banaanka tagay oo meel baan cunto ku soo karsanayno wan baan qalanay oo meeshii wanka lagu qalay taayirku kor marayo adu baaritaankii markii la sameeyay dhiig wan inuu nahayna dhiig bini aadan uu yahay baa la arkay waxaana la ogaaday gabadhii inay tahay ninkii sidaas lagu qabtay Jasim aha maxkamad baa la soo taagay 15 sano lagu xukumay laakiin 15 sano uma qalmin Soomaha xabsi daa'im buu u qalmay ama dil i'daam ilaan qof buu dilay si kasta oo bilaa sabab u dilay ma garanay sababta cadaalad darrada la sheegay Carabi ka bilaabatay ku dhamaatay ninkii dhanay gabadha dilay maxkamad baa la soo taagay 15 sano kaliya lagu xukumay gabadhiina sidaas ay ku dhimatay oo reerkoodii loogu sheegay qaladka yaalaha marka gabadhaas qaladka lahayd bise ninkaas qaladka lahaa ninku wuxuu sheegay isagii gabadha inuu xiriir ka dhaxeeyo uur ku soo baxay laakiin anu waxaan isla laga yaabaa xataa inuu xoogay miskiinta laana indho yarto iska masaakiin waa lagu dulmiyaa Carabaha ilaahay ha u naxariisto kulli gabadh muslim ay ahayd